axdiyo kitaabkii ninka oofin waayo ashahaada beelaha uurkana dabaayo axdiyo kitaabkii ninka oofin waayo ashahaada beelaha uurkana dabaayo aasanaha muuqde aasanaha muuqde bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaasha qadarintiiyo qiimaha mudan bartaad naga dhegaysanaysaan amba nagala socotaan waa galbeed t v media waxaan caawa khadka aan ku helnay inaan la yeelano wareysi gaaban waa cabdiqani maxamed baade mudane cabdiqani ku soo dhowow khadka aad baan ku maqlaa waanay soo galayaa marka koobaad ilaah baa mahad iskale marka labaadna waxaan mahad gaara siinayaa t v-ga galbeed t v dhammaantiin baa baadii salaamayaa gaar ahaan wariye deeq yuusuf oo hadda ay wareysanaya aad baan u salaamayaa waan dhowahay walaa adaa mudan waana kaaga mahad celinaa waktigaaga aad muhiimka aad noo hortay runtii waan kaaga mahad celinaa mudane cabdiqani waxaan rabnay inaan dhowr yaro su-aalo oo kooban aan kaa weydiino marxaladda maanta ka taagan gobolka awdal gaar ahaan arrinkan iminka ka taagan ee 6 goobood ee muranku ka taagan yahaya bal adigoo fikirkaaga ku cabiraya aragtidaadana ka dhiibanaya xaqiiqdana taabanaya bal wax nooga sheeg bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdiqani maxamed bade dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaana waa salaamayaa aad baad umahadsantay walaal haddaan kusoo noqdo hadalkaaga ama su-aasha adiga weydiisay 6 goobood ee muranku ka taagan yahay nimanyaho waxaa jira waxaan ummadda ka qarsoonayn inta aqliga leh ee wax garanaysaana ay wada og tahay 6 goobood ee muranka ka taagan yahay somalilan waxa weye muranka gelisay waa 6 goobood oo la wada og yahay 6daa goobood waxa weye waa 6 ka tirsan gobolka awdal weligeedna halkaa ahaan jirtay maanta arrinka waxaa bedelay waxa weye kharibay ummaddu waa wada garanaysaa oo dadkaa waxa weye ummadda soomaaliyeed rogay ee isku sheegaya dowlad gaara inkastoona aan ugu aaminsanayn oo aaminsanahay ummadda soomaaliyeed wada jirkeega haba ahaatee waxa weye ummad nool oo aqligoodii qabta oo caafimaad qabta oo wax garanaysa oo aqoon-yahan iyo uqaal iyo ugaasba leh in dhulkooda la damco oo si yaroo fudud lagu qaata waa waxaan maskaxda marnaba galin markaa waxa weye waxaan odhan lahaa raggan somalilan isku sheega ah somalilan waa magac waa waxa weye meel la wada dego oo in wada degto markaa waxaan odhan lahaa ciro aan garaar ruunayn baa ummadan maanta hor socotaa diiniyanna waxaa la yidhi dadku hadday caama hor kacdo qof caamaha oo acraabiya oo wax alla wuxuu garanaya aana jirin qoomkaasi qoom dumay oo halaagsamay bay noqdaan markaa waxaan somalilan odhan lahaa ummadan dulmiga iyo dhibaatadaad ku wadaan ka daaya 6 goobooda sheegaysaana waa 6 waxa weye awdal ka tirsan oo beesha samaroon ay leeyihiin ummaduna ay wada og tahay waxa aad wadaan inaad joojisaan baa wanaagsan war 26 sano ayaad waxa weye maalayseen adduunkiis gadabuursi dadka awdal degaa cashuurtoodaad qaadayseen oo sayda iyo waxaad ka qaadayseen salad iyo awdalba waxaad ku dhiisaseen burca iyo berbere iyo hargeysa cid kala hadashay ma jirtay duqonku waxaa la yidhi weelka caanaha waxa weye isagaa iska roga inaad iska daadisaan maaha ummadda ilaahay idin dareeya idin adeegaysa adduunkooda qaadanaysaan inaad maantana tirahdaan waxa weye dhulkoodii baan leenahay waa wax maanta gala maaha dib isku noqdo waxa weye wax gartoo ummadda dhibta ka daaya baan odhan lahaa aragtidan salaadiin badan baa ka hadashay cuqaal ka soo jeeda gobolka awdal baa ka hadlay waxgarad baa ka hadlay dhalinyaro fara badan baa ka hadlay baaq badan oo qoraal iyo codle buu dadka uu soo gaadhay muddana wuu socotaa murankan isaan ogsoonahay waxaa jira wasiiro amba xildhibaano ka soo jeeda gobolka awdal oo iyagu hargeysa fadhiya iyagu aragtidaas maxay ka dhiibteen amba sidee way u arkeen fikirkooda
وما تنتهي ولا الواحد وسؤال هذا قيمة بدن إن وارن أو حوي إن وقال وحكرت يضل يقوي هم بوقع علين لكن واحد تلاقوا وسيء مترتو إن واحد كلا أدون قف كابن آدم كهدان أدانو خلين إنه صحة أو حوي وقاطه مضى هذا كصح لكم عليان ادفعي كتا مترتو مركا إن وحوي باشن يدوروا بال وحوي قلب كل صحة وطبعا اسقبن وطبعا احترام أقون وطبعا درس كدور أقون وطبعا أقون حقوق درس كله هاي تاسوا تاس طلبات حلوانا ذا كتس إن كذا كذا كبر كأول إن نميه وحوي إن قف بن آدم من طوع سيدو إلى هذا أبوه قف كستار سيدو هاي كما تقول قفنا لما بدل كرا ما كان كهذا حلوانا من كبر كأول وحلوانو حوي لا ديكسلو وحلوانو للكودة يددكودة لفهو ذبل ليسنيو أركيا وحاي كديواني أنا كرين مركا وحنا الله يغنو شغلا إن وحنا الله نميو وحد هكوتين نشاني دكيو وددكا قبل قاوضة قصو كيدا هدي عينا ددكينو حوي حقا يا عدالة أيضا وشقينين waxaan oran lahaa rag inta dalka iska saarta ragga sidatan dalka dumarka qaata laana waxa tiin rag hada rag ku socda ninku haduu yahay nin hada ninku socdana maaha ilaa uu aqligiisa iyo maankiisa ka shaqo wixii saxan uu sax u garto wixii qaladan uu yiraahdo waa qalad waxa si ka joogo saasa loo baahan yahay talabaad waxaan hada u dirayaa Ali Xamid Jibriil baan u dirayaa waxaan leeyahay Ali Xamid Jibriil oo urbada iyo dunta isma galay والله إله النفتي قليل أنكو دارتي هذا لاتكو صحي سامي جرتو ومد بان متلابان ليدا هذيك النكا كان هالكا فاقل الله ومد آد متشيلو آد متشامتي لي نيو حوي نبمي البليوكو إذا هالكا كسو نغويس يا بسكو هالينيسو سويتي حبيل مدو هدي أنا قرقا غلق بحين وwaxa weey madaxa lagu tirin wax kale hadalkaan sheegay maanta waa been hadalka maanta qurban leeyahay Ali Xamudu waayo nin doqoni naftiisana uma roono nafta kalena uma roono marka adigoo kale meesha sinaad joogto maaha waan leeyahay talabaad ee meesha taala fariintan waxaan u dirayaa Umar Sheekh Maxamuud Faalax waxaan leeyahay ilmaha sidii shanta bilood jira ayaa ku garashay qaraabnama laana waxa weey dhul baad ka soo jeedaa oo gobol baad ka soo jeedaa dad baad matashaa وأدرك تاو قرون كابورم وحوي مدد دمبوساي هو وحوي تياب بقى بحضو في المدي سمطة يددك أركابوا كنحان هالكي أذكر الله يددك يو حلوت رود كدنا حلوت صبيو إيربوت كان حلوت دسو لاميدنا حلوت دسو حق بولي نوع شور بيبحي يعني نيك هذا كوتشوا بوحوي هرقيسة انت نوتشتو وحوي بورم إيربوت وبعنا أدر وحوي يداري قبله نومد باتين وحوي سكر شاتفين وحوي قرات كوتشا وقرات كاس أفكار marka waxaan leeyahay cid aad matasaamay jirteen iyo waxa weey asbaan le dunida adduunka ma wala muuqdaa meesha wala maqnaa wuxuu matalaa bulshada uu ka soo jeedo amba deegaanku markaa ka soo jeedo ayuu matalaa ninka wasiirkuna wuxuu matalaa maamulkaas amba waddanka dhan buu matalaa dadka degan marka hadayba ay tahay dadkii xildhibaanka ay ka soo jeeday gobolka mid iyagu naftooda u shaqo tagay sida hadalka u dhigtay marka miyana ahayn inay go'aan ka gaaraan bulshaweynta gobolka Awdal degan ayagu ay noqdaan dadkii wax qabsanayay amba isbedel kale u baahnaa waa su'aal aad u wanaagsan walaalkay dad aad nabad u maatan tahay waa wax wanaagsan oo waxa weey in ilaa 16 sano inta dawladii Soomaaliya burbursan tahayba waxa weey dadka Awdal iyo Gabiley iyo Salal dega cid wax taqtay ma jirto waxa weey waa dad ilaahayna aaminsan akhlaaqdooduna aad u qiimo badan tahay ilaahayna isku xiray iyagu iskooda wax u qabsanay iska wax u qabso ay halka ku soo gaareen cid wax u taqtay ma jirto marka waxa weey hadii la yiri Soomaaliland yani dawlad baan nahay oo dad waxa weey maanta gaar isku maamulaan nahay dadku xaq waxa uu leeyahay mar haddii cashuur laga qaadayo oo waxa weey cashuurta ugu badan ee Soomaaliland dakhliga ugu badan Soomaaliland in soo hoyda oo ka soo galo in kastanka sila ilaa in Awdal ilaa in Salal
waxa weeye xaq waxa uu leeyihiin waxay tabanayaan in loo fuliyo laakiin waa u muuqataan oo wayda aragtaan oo qofkii aqliga waa arkaya waxa weeye beel uu dawladaysa adduunka keeda lama arag laakiin samro mid baan oran lahaa adduunka waxa weeye Soomaalida ku nool ma qaadatay hadal arinta ka socota halkaas yani beel u noqonaysa dawlad oo saasa waxa weeye leeyahay ku maamulaya Soomaaliya ay qaadanaysa ma jirto laakiin idinka qaatay baan leeyahay samro hadaynaad maanta wax garan oo iskiina waxba u qasan inta dawladda Soomaaliyeed waxa weeye ilaahay dawlad wanaagsan oo umada caadil u noqon marka laga soo baxo koonfur ilaa waxa weeye sayla waa aragtaan waa la kala xidho qolo kastaaba oo taxatay idinka maxay idin diiday inaad iskiidu kuna isku maamushaan oo waxa weeye dad cilmi iyo aqoon loo dhulkooda hodan yahay baa tiinay inaad gaar isku maamushaan oo waxa weeye xuduudkiina xirataan taasaan leeyahay samarona marka waxa weeye dawladda Soomaaliland waxaan leeyahay haday dawlad tahay oo dawlad isku sheegayso warumadan ilaahay uga baqawan leeyahay waxa weeye dulmiga waa ka tirada diideen adduunka waxaad tirada diideen inaga loolama tagay foolxumadan aad wadaan joojiye baan leeyahay talabaada meesha taala dawladdan oo Soomaaliyeed baadniyo kharibteen dad ilaahay ka cabsadana tiin qalad ku saxdaan waxa weeye isma qabataan waxaan oranayaa culumada joogta Hargeysa culumada aad baan u jecelahay laana waxa weeye maanta inta umada Soomaaliyeed inta aqal ku haray waa culumada Sheekh Dirar baan la hadlayaa oo waxaan la hadlayaa aadasiiraan la hadlayaa adaabsiga noqonaya dulmiga iyo foolxumada dugsanaysan ka hadlo umadiina wax u sheega oo waxa tiraadaan dadka ka daaya dhibtan iyo dulmiga ku wadaan aad iyo aad baad u mahadsantahay mudane cabdiqani maxamed baade wax kale oo baaqa amba fikir dadka u soo jeedinayso oo intaa dhaafsan ma jirtaa walaal waad mahadsantahay aadna waa idinku mahadcelinaya adiga iyo TV-ga galbeedba waxa weeye in Allah xaq kama xishoodo qofka bini'aadamka noolna waxa weeye intuu nool yahay inuu xaq u diraa waxa uu qiimo badan in minanimka beelka hadla ma aan jeclayn laakiin umada Soomaaliyeed waxay ku nooshahay baa taas marka wixii hadii la qarinayo waxa weeye hoostaana shaqadiisa ka socoto qofka bini'aadamka waxa weeye inuu qariyo maaha waa inuu xaqiiqda tigtay waxa muuqdo ka hadlo ka warramayo wanaagsan marka niyo mid baa wada Soomaaliyeed anigu waxaan ahay shakhsi maanta danaynaya bulshada Soomaaliyeed iyo dal Soomaaliyeed waxa ay dhibaya foolxumada umada Soomaaliyeed ku habsatay gudiga dibadda waxa ay dhibaya dhibaatada haysata umada ku jirta in xirooyinka dadaab iyo xirooyinka adduunka Soomaaliyeed cid u maqaniyo ee loo qabanaan waxaan leeyahay ninkoodii u talin lahaa waxa weeye umadan toosin lahaa wax u qaban lahaa waa iraan garaad weyn war waxaan leeyahay uqaasha Soomaaliyeed baa jirta leedahay war uqaasha Soomaaliyeed waxa weeye 75 jir umada wax wanaagsan ku haga oo umada xaq u sheega oo umada toosiya oo ilaahay ka cabsada qaarka jiray war 26 sano waxa weeye rag maanta yeeli waayay in dawlad Soomaaliyeed agaha loo taago waxa la weydiinayay dadka ay aqallo yihiin waayo su'aashaas dadka Soomaaliyeed weydiinaya talabaadan waxa weeye dadka Soomaaliyeed diraya waxay tahay waa 75 jirka Kenyaati ee waliba kufaarka gaalkii wuxuu gartay in dalkiisaasi uu nabad u ahaado umadiisaasna uu ilaaliyo 75 jirka Ethiopiaanki wuxuu gartay in umadiisa iyo dalkiisu sharaf lahaadaan waa 75 jirkii Soomaaliyeed ma iraan garaad weyn buu noqday intaas oo la oran lahaa aadna waad u mahadsantahay jasaakumullahu khayran jasaabaan ku leeyahay ilaahay waxa weeye khayr badan ku siiyo waqtiga aad hurtay waxa weeye aad siisay in aadna waa idinku mahadcelinaya dhamaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آدي آد بعض ما صنتهاي مدن عبدقني محمد بادي وقويان يرى رنتي آد بعض ما صنتهاي إن شاء الله إن وكلن كينا دنبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته